shir jarayd oo maanta ay magaalada Hargeysa ay si wada jir ah ugu qabteen qaar ka mid ah salaadiinta oqaashi iyo waxgaradka beesha degta koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen muranka xoogan ee muddooyinkii u dambeeyay ka taagnaa seeraha banka Qoolcade iyagoo sidoo kalena salaadiintani xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyeen dadka deegaankaasi ay ka dhex abuurayso xasilooni darro isla markaana ay xukuumaddu dadka deegaankaasi ay ku qasbayso arrin aanay doonaynin banka yar ka awdal jooga kolka dooka baxa uu yimaada ka xeebta joogaana uu yimaada kama xidhna wixii oo dadweyne ka sokeeyana way yimaadaan kama xidhna Itoobiya waxa joogaana kama xidhna way yimaadaan wax maanta u banaan ummadda Ilaahay Soomaaliland oo ay la yiraahdo warba halka ay nagu hagaajiyeen intaas jirta dhulkii bari hore la qaybsado lagu kala tagay war inta yar dadkan u hayna anagu ma haysan dadkan u hayna hadii la yiraahdo anagu deegaan un baan u nahay dadkan u hayna qoladeena reer Hargeysa hadaynu dawladdan iyo hadaynu shicibka nahayba nin waliba shan buurood buu cunay banaanadii dhulka waynu marinay war ma kaymihii ariyuhu daaqayeen baynu imika soorkii ula galay war waxa leeyahay inta yar arigu inoo daaqayo caanayo hilib ka maarmi mayne war ilmaade rayaa dhulkii liqnay oo dadkii liqnay war reer miyiga inta yar arigu u daaqayeen aanu nabad gelino waxaanu halka ka digaynaa in dadkaan aan dhibaato loo geysan nabadgelyada Soomaaliland aan lagu dhaawicin in arinta faraha laga baxo cid kale oo noo weydaarto oo arinta faragelisaana iyada markaa ka masuula wixii halka ka xumaada beesha odayaashu ay sheegeen dalku waa ku cidhiidhi ay yaalaan waa ku cidhiidhi iyagoo degan oo maanta ku nabad qabay cidhiidhi ku tahay aad ugu dhiban marka ay sidaa tahay haddii dee laga hunqaaciyo oo la farageliyo oo dhibteeda ay leedahay waxaan ka mid ahay 95 baan joogaa ragii yiri waanu ka dagaalamay baan koow ka ahaa ninka yiri waanu ka dagaalamaynaa wixii aan qaban dawladdu yay la yaabin boqor raabi hadduu yiri waxaasi noo qabto waa ka dagaalamaynaa annaga ku garab taagan waxaanu leeyahay dawladdu wixii aan qaban hanaga deyso ما أنت دريس كحرم بعد دولته ما أنت مدحده بعد دولته ما أنت العقيسة بعد دولته ميان أنت محيصة ترى هي أنت تلعسن أنا يدت كأني هنا الدولة وحقول هاي هذا بقى شن بنك هو بلوه يستعمر ركبه هو بيسن مالك استبلوا ده هرجيس باس بكرة تتبع لقود لا ولا سكوري مادة ما من الشيء بعد تقبلوا ده هرجيس كنت قالما تنوع بويني وصورة كان اللي بيخد على هالديل iyadoo aan arrimaha laga wada hadlin liiska farageliyo waxa leenahay halaga digtoonaado dhiifta iyo dhaawaca naga soo gaaray mas'uuliyiin qaranka u shaqeeyo oo reerka ka tirsan oo boqorada iyo uqaasha iyo salaadiinta reer duraya sida agaasimaha xanaanada xoolaha la igu yiri cusubi inaan yaabihi bas qabsaday baa lii dabeetana wuxuu yiri aaba ma intaan hooyada guursaday wixii dhacay intaan hooyada ba guursan wixii dhacay intii aan hooyada guursaday wixii dhacay uu ka sheekeeyo intii aan hooyada guursan uu daabu bankan abaartii daba dheer nin noola saaka xargiiso malaha beel ka tirsan Soomaaliland ka midi oran ma yahay la xidhaba